بسم الله الرحمن الرحيم. xulbadu waa daawo dhareed xambaarsan nafaqo iyo faa'iidooyin caafimaad bulshadeenuna ay aad u isticmaasho, laakiin maxay cilmi baarayaashu ay ka sheegeen waxtarkeeda ama ay xaqiijiyeen? xulbadu nafaqo ahaan waxaa laga helaa tamar, borotiin, dufanta wanaagsan, macdanta birta, manganiiska iyo magnesiumta. sidoo kale xulbadu waxay sare u qaadaa hormoonka soo daaya caanaha, sidaas awgeed waxay muhiim u tahay hooyooyinka ka sheegto caano yarida. waxay kaloo yareysaa xanuunka la dareemo xilliga caadada, waliba markii 900 oo milligaraam laga qaato 3 maalmood ee ugu horeysa wareegga caadada. sidoo kale xulbadu waxay sare u qaadaa hormoonka ragga ee testosterone, kaasoo muhiim u ah ragga hormoonkoodu liito. haddii 300 oo milligaraam oo xulbo ah 2 jeer maalintii la qaato muddo 8 usbuuc ah, waxaa la arkay inay xal u noqoto hami-yarida iyo kacsi la'aanta ragga qaar ay ka sheegtaan. sidoo kale xulbadu waxay maareysaa macaanka, waxayna ka hortagtaa cudurka kolestaroolka ee ka dhasha macaanka